بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn waxaan salaamayaa ustaad Cumar Inshaar iyo dhammaan daawadayaasha channelka Ogaansho. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil waa bari arday ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, sidoo kalena milkiilaha channelka waa bari media. waxaan jeclahay inaan la wadaago daawadayaasha channelka Ogaansho xog ku saabsan waxbarashada Turkiga, sida jaamacadaha, qaababka loo helo dalku-galka dalkan, iyo waliba nolosha dalkan iyo dhaqaalaha ardayga ku baxaya bishii celcelis ahaan. haddii aan ku bilowno noocyada ay u qaybsanto waxbarashada sare ee Turkigu. waxbarashada sare ee Turkigu waxay si guud ugu qaybsantaa 3 qaybood: jaamacadaha dawladdu ee maamusho, jaamacadaha gaarka loo leeyahay, iyo waxbarashada scholarship-ka ama minxada oo ay dawladdu maalgeliso. haddaan ku bilowno waxbarashada minxada ama scholarship-ka, waxaa sanad walba dalkan yimaada boqolaal arday oo Soomaali oo lagu keeno qaab minxo minxadan ayaa loo xareystaa qaab online ahaan oo aad u sahlan. haddaad ka mid noqoto ardayda heshana, waxaad helaysaa dalku-gal waxbarasho deegaanka degi lahayd oo ay dawladdu ku qabto waxbarasho bilaash iyo sidoo kale qadar lacag oo ay bil walba dawladdu siiso ardayda. minxada sanadkan waxaa la furayaa 15 bishan koobaad 2019, waxaana la xirayaa 20 bisha labaad 2019. macluumaad dheeraad oo ku saabsan minxadan waxaad ka helaysaa cinwaankan ka muuqda shaashada oo website-ka rasmiga ee minxada Turkiga. haddaan intaa uga nimaano minxada Turkiga, qofkii raba inuu dalkan waxbarasho u yimaado, ugu horeyn waxaa qasab inuu iska diiwaan geliyo jaamacad ku taala Turkiga isagoo jooga Soomaaliya. kadib marka uu isdiiwaan geliyo, waxa ay u soo dirayaan warqad ardaynimo, kadibna warqadaas ayuu u geynayaa safaaradda Turkiga ee Muqdisho, wuxuuna codsanayaa fiiso waxbarasho. badanaa aqbalaad waxay qaadataa ilaa bil, kadibna waxay ku siinayaan dalku-gal waxbarasho, kadibna waxaad awoodaysaa inaad u soo boqosho halkan. jaamacadaha dalkan waxay u qaybsamaan 2 qaybood: kuwa dawladdu ay maamusho iyo kuwa gaar loo leeyahay. haddaan ku horeyno jaamacadaha dawladda oo jaamacadaha ugu tayada sareeya dalkan, 6 jaamacadood ee ugu sareeyana ay ka mid yihiin sida jaamacadda Istanbul Teknik, Anadolu, Gazi iyo Hacettepe. waxaana aad badankood ka helaysaa takhasusaadka aad rabto sida engineer, dhakhtar, agriculture, xiriirka caalamiga iyo kuwo kale oo badan. sanadkiina waxaad ku dhiganaysaa lacag aad u yar oo u dhaxaysa $250 ilaa $500 sida ay u badan yihiin. laakiin waxaa khasab kugu inaad taqaano luqadda dalkan looga hadlo oo ay badanaa jaamacadaha dawladdu wax ku bixiyaan. sidoo kalena aad geshid imtixaan la dhaho IELTS ama loo yaqaano Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav, oo ay ka wadaan imtixaanka ardayda ajaanibta oo ay ku qiimeeyaan aqoonta ardayda dalka dibaddiisa wax ka soo baratay, sidoo kalena lagu xadido takhasusaadka qofka uu rabo. waxa uuna ka kooban yahay su'aalo IQ iyo xisaab badan. jaamacadaha qaarna waxay ku daraan physics iyo chemistry. jaamacadaha gaarka loo leeyahay haddaan eegno, iyagana aad bay u sahlan tahay inaad iska diiwaan geliso marka la barbar dhigo jaamacadaha dawladda. laakiin kaliya waxaa jira jaamacado kugu xojeynaya inaad geshid imtixaan Ingiliish si ay u tijaabiyaan inaad aqoon badan u leedahay Ingiliishka. waxaana iyaga sanadkii lagu dhigtaa lacag u dhaxaysa $1,500 ilaa $3,500. nolol ahaan Turkiga waxaa lagu tiriyaa dalalka ugu jaban ee ardaygu ku noolaan karo marka loo eego tayada waxbarasho aad ka heli kartid. magaalooyinka dalxiiska sida Istanbul xogaan noloshoodu way ka sareysaa marka la barbar dhigo magaalooyinka kale sida caasimadda Ankara, Bursa, Adana iyo Izmir. haddaba ardaygu waxa uu furan 2 wado midkood inuu sameeyo: kow, inuu dego guryo ardayda loogu talagalay oo ay dhahaan Turkidu yurta. waxaad ka helaysaa dhammaan wixii aad u baahnayd sida jiif, dhaqid, 2 waqti oo cunto khad internet. waxaad noqolka wadaagaysaan 1 qof oo kale. bishiina waxaa lagu degaa ilaa lacag u dhaxaysa $150 ilaa $200. ama inaad magaalada guri caadi ka kiraysato oo aad arday Soomaali israasataan oo aad wada kiraysataan guri, kadibna aad wada degtaan. sidoo kale markaasna noloshaadu waxay u dhaxaynaysaa $150 ilaa $200. gaadiidka aad adeegsanaysid haddaad arday tahay aad buu uga jaban yahay qiimaha dadka kale ay ku raacaan, oo ardayga waxaa la siiyaa kaar ka qiimo jaban 75% kaarar kale ee dadka caadiga gaadiidka dadweynaha ay ku raacaan. intaasi waxaan kusoo koobayaa xog kooban oo ku saabsan waxbarashada Turkiga. waxaan rajaynayaa inay ka haqabtirto dhammaan ardayda u baahan ama u xiiso qaba inay halkan waxbarasho u soo doontaan. waxaan rajaynayaa in Ilaahay idin rumeeyo hadafkiina aan ku wada kulanno halkan idinkoo nabad qaba.